كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أباني ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وحديث عظيمة وإنه موجنايا إن waxa jannada lagu galayaa waxa weeyaan waa ilaahay iyo rasuulkiisa oo la ateeco sallallahu alayhi wasallam waxa naarta lagu galayaa waa ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam oo la khilaafo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ummadayda oo dhami jannada galaysaa kii isagu iska diiday mooyaane saxaabada ku tiri ya rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo yaa diiday inuu jannada galo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri man ataa'ani qofkii aniga ateeca دخل الجنة كاسو أهل الجنة جنة قليا ومن عصاني قفكي عاصيانا دي كاسو حويان فقد أبى وديري أو يسأل أبا قوستي دي إنو طريقة كلا راعون هذا بقى وامحي عيدي وامحي لأن كلمة دي أف عربي كتب سوما إنه أف عربي إنه كسوق قاضني وحويان لغة الإسلام كأف عربي اللغة العربية ولغة الإسلام ويان ولغة الإسلام كقرآن كي سنه بعد إن أف عربي كي يمد مركا إسلام كمال والبو أدون كغفا في لغة أف عربي واحد دعق الشيء لغته محلقها إذا كان صو إسلامي أي كهل ديشرين أما صومالها النقطة أما هنديها النقطة أما إن واحد وراه هالنقطاني واحد اللغة أفعال بيعود حق الشيء إما مثل كوكلا أف صوماليا ده أنت سو كلمدود وأف عربي أي كل حجرة إنك سوكوا حنحني علمانيين تيو اللادينين تيو ليبراليين تا لغة أف عربي النعبي أي كحناقان هدي هذا الكاغا أد كلمده إن سوماليوبي oo quraanka sunnah laga soo xigtay hatta hadaad qoraalkaaga ku soo darto ka boodayo ku xaraaqaya waxa weyn waa xumaanta uurkoo jiftay af carabiga iyo magaranaysa in luqadaasi quraanka sunnaha ku qoran ay diidan yihiin laakiin qasban anhu raqam uu fahim وقشجود لقد عربي وأف صومالي كوي كبوحدا لقد فارسي كي كبوحدا لقد السواحلي أي كبوحدا لقد أردوغا أي كبوحدا بشتون كي كبوحدا لقدها كلا عالم كله اللي مسلمين أي دجينهين إسلام كأوجري أي كلمات كي ديني جها إسلام كأها أي بحجري مركا كلمة العيدنا وحكمت هاي كلمة ذا إنه دي أينو أفعال كسوق هذا هو كلمة إنك الدين ها بين استعمال الله وعيد الفطر كي سومها يعيد الأضحية واعيد تعرفنا بدي بين أولوجنا ونقاني وحكلوا مين نقول هذا كلمة دني أسل كيغو ما حيتها ما دام أي تهاي كلمة قاموس كي ديني جاها إسلامي جاها كل حشرتها كلمة دني ما حيتها شيخ الإسلام ابن تيمية أيها وحى أوليه وأنا أفسمان كتر شيء من دونها وحى العيد واسم جنس ومقع ومحا الله يقانا وحا الله يقانا مالين والبا إيا ميل والبا مركا يسوقوا وحو كهلا عيدها قالوا شيء عيدها قالوا مركا نلين وحا نجهدنا ومالين والبا أما قوب والبا أو أي كوكلمان إيا عمل والبا أو أي سوكر ديين أو يكون سوكر ديين ماشي عسي أي كوكلميان إيا وقتي عسي أي كلميان مركا إما كان وحا إن معلومة تقول إن صور دافي عيد نصارى والله يجوا كريستيان كيسكو مقعود لكن إلهي كتاب كيسا وحكم مقعابي النصارى أيكم مقعابي عيد دي أو بشهر ديسمبر آخر كيجا أي أود بالدقيين أو كريسماس بيكم مقعابان وللأسف الشديد وحوح لغح ماضاء إن ضد مسلمين أي عيد داسي أي أود بالدقان عيد داسي أي أود بالدقان بل
baraha bulshada haddaad aragto waxaad arkaysaa kuwo islaam sheeganaya oo gaaladii ku leh Merry Christmas ku leh waxay soo diileen wadda balciidan ay Christmas-ka leeyihiin halkay ka timid halkay ku asal haysaa waxa ay ka timid oo dabaal degayaan waxay leeyihiin waa maalintii Nabi Ciise dhashay alayhi salaam Nabi Ciisena awalan qabla kulli shay xitaa nasaarada laftooda mu'arrikhiintooda ayaaba diidan in maalintani ay tahay maalintii uu Ciise dhashay alayhi salaam taas waa mid talabaad ma ogtahay in nasaaradu ay qaarrumayseen in Nabi Ciise uu Ilaahay yahay laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha way gaaloobeen waa saddex buu ayuu mid ku yahay marka waxa kamida Nabi Ciise oo ay leeyihiin waa Ilaahay qaarna ay leeyihiin Nabi Ciise waa ina Ilaah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira marka nimankani nasaaradii markay maalintaasi Christmas-ka ay u dabaal degayaan waxay u dabaal degayaan shirkigaasi ay Nabi Ciise alayhi salaam ay Ilaah ka dhigeen ama Ilaahay waa ina Ilaahay wal hadiis oo qabataa haddaba qofka muslim sheeganaya ee dabaal dega iyo ciidaasi ka qayb qaadanaya bal adoo ii sheeg oo ii tilmaam xaaladiisu waxa ay tahay qofkan ciidan ka qayb qaatay kuwan baraha bulshada kaararka bogaadinta u dira gaalada ee ku qoran Merry Christmas wanaagsan dee waxa weeyaan kufrigaasi iyo shirkigaasi ayuu qayb ka yahay ha ogolaado ama ha diido wuxuu qayb ka yahay gaalnimadaasi ayuu ku taageerayaa uu ku bogaadinayaa oo uu ku tahniyadeynayaa halkaan waxa kaaga muuqata inay ku dhaceen xumaan aad iyo aad u weyn waxa bariyahan dambe soo kordhay oo aad loo buunbuuniyey oo dawladaha carabi ay ka qayb qaadanayaan ikhwaani in nasaarada iyo yahuudda walaala laga dhigto waxa la soo kordhiyey bidcada lagu magacaabo al-adyaan al-ibraahimiya diimaha ibraahimiga oo sheeganayaan in diinta islaamka iyo diinta nasaarada iyo diinta yahuuddu intuba ay ku abtirsadaan nabi ibraahim ma kaana ibraahim yahuudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan muslima nabi ibraahim yahuudi iyo nasrani midna mu ahayn ee wuxuu ahaa mid muslima oo diin baatila oo dhan ka iishay waxa uu iishay diintaasi xanafiga ayuu u iishay wama kaana min mushrikiintana nabi ibraahim kamu mid ahayn daba waxa maanta wax laga naxa جزيرة العرب هو جزيرة الإسلام أو جوجشي إسلامك ماشي وحي وكسو دقي الرسالة دي إسلام كأن محمد صلى الله عليه وسلم أي كأن بقاطي إن ما أنت عيد داسي كفر الشرك وقد بلدقايو وكوا مدحنا كمدي ay ummadda nasaarada ay u tahniideynayaan Twitter-kooga ama Facebook-googa ama tahniyad rasmi oo ay dawladdu soo saarto ay gaalada ugu tahniideynayaan oo ay leeyihiin ummadda nasaarada waxaan u rajaynaynaa Merry Christmas isa leeyihiin hadda waa dhulkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku jihaaday saxaabadiisi ay ku jihaaday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asnaamtii u burburiyay Kaabada ka laalaaday markii uu Maka furtay
ayaa imika waxa dib loogu soo celinayaa dhaqankii iyo caadooyinkii iyo ciidihii iyo dabaaldegii gaalada ummadda islaamku maanta khatar bay ku jirtaa marka wax lagu tilmaami karo diimaha ibraahiimiga ihi ma jiraan islaamku diin keliya ayuu yaqaanaa ina addiina cinda allahi islaam qof walowbana intiinani hor fadhiday intaa baraha bulshada ka dhegaysanaysaa qof walowba ku talagal in maalinta ilaahay subxaana wa tacaala aada la kulmaysay geeridu kuu timaaddo aada kula kulanto islaam saxa oo saxar tiran oo barax tiran oo saafiya inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada kula kulanto taasi ku talagal haddaba taasi waa mid ciidaha gaalada ka mid a ee weliba diintooda la xidhiidhaa waxaa kaloo imika soo socotaa inay caawiya habeen dambe miday tahay caawa habeen dambe waxa ay gaaladu ku magacaabaan new year waxay ku magacaabaan oo af soomaaliga lagu magacaabo sanadka cusub markaa sanadkan cusub ee lagu sheegayaa maaha sanadkii hijriga ahaa ummadda islaamku waxay leedahay taariikh bay leedahay oo iyaga u gaara laakiin gaaladu waxa ay leedahay taariikh iyagu ay ku xisaabtamaan oo waa taariikhdan miilaadiga la yidhaahdo waayahay eeg 80-nadii 86-kii bay baan filayaa anigoo jaamacadda ku jira Mareykan ayaa nin professoro in layla Ali al-Mazruuci waa professor taariikhda iyo African studies kiyo ayuu ka dhigi jiray jaamacadda ku taala gobolka Michigan ee Mareykanka marka bariyahaasi ayuu soo saaray buug buu qoray buugiisii baa waxa laga sameeyay documentary TV-yada waliba ka public ee Mareykanka laga sii daayo muddo socday oo xalaqaad laga dhigay marka wuxuu ka sheekeynaa isagu dhinaca taariikhda Afrika iyo loolankii Afrika ku dhex maray islaamka iyo diinta nasaarada iyo diimihii wathaniga ahaa ee ay haysteen kolkaasi jaamacada wax ka dhiganayay ayuu yimid oo Mareykan buu ku wareegayay Mareykan ayuu ku wareegayay oo buugiisa iyo documentary-ga buugiisa laga sameeyay ayaa lagu soo bandhigay kolkaa markuu yimid ayaa lecture buu jaamacadda ka akhriyay marka ardayda jaamacadda inuu dhegeysanaysaa طبعا halkaasi markuu professorku muxaadara caam markuu akhriyo ama qof uu muxaadaro jeedinayo waxay dhaqan u leeyihiin khaasatan marka dadka intellectualska iyo muthaqafiinta wax loo akhriyayo in publica ama dadka dhageysanaya microphone baa dhex yaala microphone-kaas su'aal laga weydiiyaa ardaydii waxa ka mid ah arday Nigeria oo Nasraani muslimin marka bariga waxa ka socotay in muslimiinta reer Nigeria goboladooda kamid ah ay shareecada doonayeen inay ku dhaqaan marka ardaygii baa Dr. Ali Mazruuci su'aal buu weydiiyay su'aashu weydiiyay waxay ahayd maxaad ka oranaysaa in Nigeria shareecada lagu dhaqo shareecada islaamka in xukunka iyo siyaasadda iyo cuqubaadkii lagu dhaqo professor maxaad ka oranaysaa marka inankan ardayga Nasraaniga wuxuu su'aasha soo bandhigay inuu arrinka diidan yahay marka Dr. Ali Mazruuci wuxuu ku yiri intaanu su'aashiisii uga jawaabin ayuu ku yiri taariikhda aad isticmaashaan taariikhda rasmiga ah ee dalka Nigeria laga isticmaalaa waa maxay isaashu cabdi soma wa taariikhda Nasraaniga ee miilaadiga ah ee waliba dhabarka ku haysa in de aqeedada baatilka ee Nabi Ciise ka haystaan dhalashadiisii
عليه السلام marka dhagtarku wuxuu jeeday de ummad walbaaba ummadda muslimiinta waliba majority-ga iyo aqlabiyadda Nigerianka ayhi hadii muslimiin de sharciyadooda inay isku dabaqaan ya u diidayaan marka waxaan jeedaa ayo ikhwa taariikhda miilaadigi ma hateeni maaha tan loo isticmaalo ma hateeni teen waa taariikhda hijriga ah haddaba habeenkaasi la leeyahay waa habeenka in sanadka cusub طبعا nimankan nasaarada waliba reer galbeedka ee maanta hormoodka u ah ummadda nasaaradu iyaga dhinaca dhaqaale iyo military bay iyaga adduunka haysta Soomaa walidaalika ayaa waxay ku qasbeen umamkii kale in ay dhaqamadoodii iyo ciidahoogii iyo dabaaldegyadoodii ay ka dhigaan wax caalamiya universal bay ka dhigeen marka imaka waxaad arkaysaa adduunka oo dhan bima fiha alcaalam alislaami oo dunida islaamka ay ku jirto in habeen dambe laga dabaaldegayo ya umamkii kale kuwii hinduugaha kuwii buuraha kuwii yahuudda ahaa wax walba oo umamka adduunka kamida habeenkaasi ilaa 12 habeennimo ilaa saacadu ay isbedelayso samaha iyagu saas ka xisaabtaanay eegada inagu sida aynu u baabaanay iyo sida leeynoo gumaystay inaga maalinteenu goorma bilaamata ilaa waa maalin habeen subax